wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ay weliyaan qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood waxaana soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo kan degmada iyagoona kaga hortagay hilaadii meel 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Laascaanood waxaana wafdigani loo soo galbiyay dhinaca iyo qasriga madaxtooyada ee magaalada Laascaanood iyadoona halkaasi saxaafadda si wada jir ay ula hadleen barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir iyo sidoo kale maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed kuwaas oo wafdigani ku soo dhaweeyay gobolka Sool wafdi aad u ballaaran oo kamid ah golaha wasiirada ama xukuumadda dalka oo ay kamid yihiin janaanada ciidamada ayaa meesha maraya waxaanu ku soo dhaweynay gobolka Sool caasimaddiisa Laascaanood hawsha u socdaan hawsha nabadeynta maanta in dhaabad adag loo taago nabadii gobolka gaar ahaan mataqaana koonfurta Laascaanood oo adeegyada in dawladba socotay muhiimadda ay u socdaan intaas weeye bidmillah laakiin wixii dambe hadii Ilaahay yiraahdo shirar ka soo baxana dib ayaa soo soo jirtaa الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت واحد لكم كسور دويني وفد بلارن وهجامين وسيرك مدحتويدا محمود حاشي عبدي هورنا واحد وسهري وسير كريمة جودها ياسين حاج محمد حير وشيء الصعداء الكاس واحد وهي حالة النبتجلية كسوكان تاي تيجانكو يا رمها عبارة بين ليجو عبارة عرض بالله صعداء يا رمها هذين ليجو wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa isaguna dhinaciisa wafdigani ku soo dhaweeyay gobolka Sool isagoona ka xog waramay ujeedada safarka wafdigani inaanu idiin sheegno sidaad u aragtaan wafdi ballaaran oo ilaa iyo Hargeysa ka soo kicitimay ayaa halkan maanta inoogu yimid gobolka Sool ujeedada wafdigu u socdayna waxa weeyaan aniga iyo xildhibaano iyo aanu ka soo horeynay inta kale soo daba socotayna ay u timi waxa weeyaan in xaaladaha nabadgelyada ee la og yahay ee halkan gobolkan ay ka taagnaayeen arrimaha xasaasiyad nabadgelyo darro iyo xogaayo xasilooni darro ah in wax laga qabto oo dawladdu halka kan u timaado xoogeeda saarto oo soo afjarto shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka beelaha qaarkood dhex yaala Samiir Saciid bila Bulsha TV Laascaanood